siyaasi cabdiraxmaan sheekh maxamuud oo ka mid ahaa aasaasyaashii xisbiga mucaaradka ah ee waddani isla markaasina ka soo qabtay 2 xil oo kala ah xidhiidhiyaha Yurub iyo North America iminkana ahaa xogayaha waaxda samafalka iyo daryeelka naafada ayaa xilkii uu hayay xisbigaasi si buuxda isaga casilay. cabdiraxmaan waxa uu ku dhawaaqay garab ka go'ay xisbigaasi waddani oo la yiraahdo Indheer Garad. cabdiraxmaan waxa aanu weydiinay maruu maanta telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kula hadlayay magaalada Sheffield ujeedada iscasilaadiisan keentay. waa run oo waxaan iska casilay xisbiga waddani oo si buuxda ayaan uga baxay xisbigaas. xisbigana runtii waxaan ka mid ahaa aasaasyaashiisii waqtiga iyo tacabka faraha badan soo geliyay. waxaan ka qabtay 2 xil oo markii horena waxaan ahaa xidhiidhiyaha Yurub iyo North America, markii dambena waxaan ahaa xogayaha waaxda samafalka iyo daryeelka naafada ee xisbiga waddani. ujeedooyinka aan uga baxay kolley xisbi mucaarada buu xisbigan waddani weeyaan sidaad la socoto. waxaana dee laga lahaa markii la aasaasayay ama aanu waqtiga iyo dee juhdiga gelinaynay in aanu runtii dee suurto gelino isbeddel togan oo ka dhaca waddanka oo ka qayb qaata dib u dhiska qarankani u baahan yahay. muddo dheer kadib runtii iyo tacab fara badan kadib in badan oo ka mid ah bahweynta xisbiga waddani gaar ahaan kawaadirtii aasaasyaashii xisbigaas waxaa saameeyey niyad jab weyn oo kaga yimi siyaasadda habacsan ee aan ujeeddada lahayn ee ay runtii caadaysteen madaxda xisbiga gaar ahaan guddoomiye Ciro. runtii ujeedda la'aantaasi waxay shaki weyn gelisay dadkii mucaaradka ah ayaa runtii waxa ku dhacay niyad jab weyn. in badan baa runtii markaa laga fikiray in gudaha lagu saxo arrintaa. ugu dambeynse waxaa runtii lagu fashilmay hawshaasi inay mataqaanaa gudaha lagu saxo, sidaa darteedna dibadda ayay u soo baxday hawshaasi. cabdiraxmaan ayaa waxa uu ii sheegay inuu jiro garab ka go'ay xisbiga waddani oo isagu ka yahay guddoomiye ku meel gaadha, waxaana uu yidhi waan ugu soo horeeyey runtii dadka iscasilay ee mas-uuliyiinta xisbiga waddani. waxaad intaas miidiyaha ka aragtaan dad mas-uuliyiin xisbiga waddani iska casilaya. waxaana runtii aasaasmay imika oo igu weheliya inaan dareenkan iyo mataqaanaa hawshan urur dhan garab dhan oo ka mid ah xisbiga waddani oo kala jooga daafaha caalamka oo magaciisa la yidhaahdo garabka Indheer Garad ee isbeddeldoonka xisbiga waddani oo aniga runtii imika si ku meel gaadha guddoomiye la igu doortay. ayaa jira runtii oo structure-kii iyo qaab dhismeedkii uu garabkaasi u baahnaa runtii qaatay oo samaystay. in badan oo ka midna dee waxay kala joogaan gudihii iyo dibadahaba. markaa wadatashi baa soconaya sidii bal arrinkaa la isugu dabaridi lahaa. waxaana laga yaabaa haddii ilaahay ka dhigo ayaamaha soo socda inaan u ambabaxo waddankeennii Somaliland oo aan u tago xubnihii gudaha joogay oo wadatashiga aan halkaa u tago. isla markaana dib baan idinka sheegi doonaa haddii ilaahay ka dhigo dhammaan halka wadatashiga iyo mataqaana arrimahaasi ay shanshada dhigaan ee ay soo fadhiistaan haddii ilaahay ka dhigo. yaasiin faarax jees, telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Sheffield.